wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland ayaa maanta xilkii u kala wareejiyay maareeyihii hore iyo maareeyaha cusub ee wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera waxaana munaasabadaasi xil wareejinta ka soo qayb galay maamulka gobolka Saaxil iyo degmada Berbera mas'uuliyiinta laamaha kala duwan ee gobolka Saaxil siyaasiyiin odayaal iyo shaqaale weynaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera ugu horeyna waxa halkaasi hadalka isku daba maray qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadaasi rag badan oo ka horeeyay waa laga baxay biyalaan wax kastoo la geliyo halkan waa kii faanayay isduwihii wasaaraddu iyadoo malaayiin lacag la gelinayo ayaa haddana baasha hoodo lagu kala leeyahay maareeyahaasi runtii magaalada biyaheeda waa lagaga dhastay cid walibana way u markhaati furaysaa wuu ku dadaalay uu sameeyey uu dhameeyey dhammaan beerkii oo dhan baa la bedelay ceelashii oo dhan baa la bedelay wartarkeeyaa mataashabeen maanta biyuhu gaayaan ayay soo badanayaan wuxuu halkaa u gaarsiiyey ilaa iyo meesha mansoor ka shaqaysa hudheelka mansoor meesha dhulka ka sheeyay deerka dheer uu leeyahay ina bahalkii ina bustiile ina cawaal bustiile halkuu leeyahay waa ku arkay biyaha halkaa ilaa iyo noobeeday gaadheen xaggaa waxay gaadheen ilaa iyo waxay gaadheen magaalo cad korkeeday gaadheen istil way u baahan tahay biyo Berbera halkan weli intuu maareeyay joogay biyaha go'ay ma maqal meel ba wax ka xumaadeen ma maqal meel ba halkan sida ka noqotay ma maqal dadaalka uu dadaalayo weeye ilaahay baa ka jasaaytana anigu bani aadmi ka jasaaysinay ma kooranayo laakiin ilaahay baa jasaayiga bixiyay isagana ka jasin doon Saleebano sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay kana warbixiyay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii uu xilka hayay maareeyihii hore wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera Saleebaan Cabdiraxmaan Looriye waxaanu maareeyuhu sheegay in maanta uu wakaaladda kaga tagayo magac wanaagsan deynta la wareegay miisaankeeda garanaysaa 220 kun maanta waxay maraysaa 180 kun 185 kun waan bixiyay maanta deynta 185 kun way baxday deynta wakaaladdu gashay ee waqtiga deynta ka harsan waa 39 kun iyo $290 ayaa maanta haraya deyn wasaaraddu habendhaxyada wax marka halkan timaado lagu soo qoro huleelada laga soo dalaacay 3 sano ugu dambeeyay ama 4 sano ugu dambeeyay aan iraahdo 17,912 kun bay maraysaa lacagtaasu marka la isku geeyo waxaad arkaysaa boqolkiiba ka badan 80 inay wakaaladdu bixisay lacagtii sida sifada sharciga ay ku gashay waxa kale ay harsiin oo ay ka yartay waxa 40 kun ka harsan ee maanta ka yari ay harsan tahay waxa farxad kaliya in maanta dhismahan aad arkaysaan iyo beelowga magaalada bedelay iyo gaadiidkaan iibinay iyo horumarkaanu samaynay in iyadana ku baxday lacag dhan 300 kun inay ku baxday maanta iyadana ayaa farxad weyn oo horumarina oo iskugu jirta beelowga magaalada iyo dhismahan iyo dayactirka xafiisyada iyo beelowga waaweyn iyo biyo fidinta intaba farxad weyn waxa leeyahay ina maanta wareejinayo meelaan deyn lagu lahayn oo zero maxaa la yidhahdaa wax deynaani jirin dhifisida marka wax dhifisida maanta ku jirtaa ma jirto laakiin waxaan wareejinayaa lacag cad oo maanta qadarkeedu dhan yahay waxaan wareejinayaa maanta lacag cad oo qadarkeedu dhan yahay 427 milyan 921 kun 990 sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay una mahad celiyay dhammaan mas'uuliyiinta laamaha dawladda ee kala duwan maareeyaha cusub ee wakaaladda biyaha Khadar Saciid waxaanu sheegay inuu halkaasi ka sii qaadi doono horumarka ay ku talaabsatay wakaaladda biyaha ee Berbera ilaahay baa mahad leh xafladan balaaran ee qiimaha badan la isugu keenay ilaahay baan u mahadnaqaynaa marka labaad waxaan mahadnaqayaa maamulkii wasaaradda biyaha maslaxaadka waxaan u mahadnaqayaa maamulka gobolka iyo degmada oo intii aan joogay dhowrkii habeen magaalada imika si wanaagsan igu soo dhaweeyay waxa kale oo u mahadnaqayaa shaqaale weynaha wakaaladda biyaha Berbera oo aan shalay si fiican isu aragnay badidooda oo runtii iyaguna si kaliya laaba ii soo dhaweeyay waxa kale oo u mahadnaqayaa maareeyihii hore wakaaladda biyaha Saleebaan oo runtii isaguna si wanaagsan oo dadnimo leh isaga laftiisu xafiiska igu soo dhaweeyay xil wareejintana maanta halkan ku sameynaya
gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan barasaabka gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland waxaana hadaladoodii kamid ahaa Gumta Ismaan Cali wararka Royal TV Berbera dhabar iyo dhaxaab kadar baan doonay inuu fahmo waa lagaaga sheekeyn lagu odhanin maariyo horu jeclaayo maariyo horu jeclaayo lagu odhanaya adigana waa ku jecel waanu ku kasbanahay wax kasta oo biyaha ka imanaya inaad iska garab taagno shaqo kasta oo aanu ka hayno degmada waa mudan bay u tahay oo minaanta koobaad sidaa awgeed waxaan doonayaa uun inaad fahanto khadarow maanta xil laguma wareejina xujaa lagugu wareejiy wallaahi waa xujo ana ilaahay waxaan ka barayaa ina maalin baa wareejinayaa inaan maalinta wareejinayo anaa xil wareejina xujo wareejiyo maanta waxaynu xilka u kala wareejinaynaa labada maareeyaha cusub iyo Salamaan waan usii ducaynaynaa waxaan leenahay insha allahu tacaala meeshaadii meel kasii jaraysaan kugu ducaynaynaa Salamaan waxaan u qirayaa intii aan joogay gobolka inuu ahaa maareeye runtii dadaal badan aad shaqada uga daacada waxaan kaloo qirayaa inuu haystay shaqaale isku duuban oo mid ah oo si fiican ugu shaqeeya oo isaga iyo shaqaalihiisu ay mid ahaayeen magaalada Berberana shaqadooda ay ku mabsuutay sida u dhantayba soo dago Berbera oo la wada sheegay xaaladeeda horta Berbere waa wadnihii Soomaaliland waa halbowlihii qaybinayay dhiigga ee uu qaybinayay jirka bini'aadamka oo haddii xubin ka mid ah uu gaari waayo dhiiggaas dhimanaysa iyaduna sidaa daraadeed mar hadday Soomaaliland u tahay halbowle Berberi waa in iyadana loo ilaaliyaa kaabayaasheeda nolosha oo ay ugu horeyso biyaha Gumta Ismaan Cali wararka Royal TV Berbera